Asalaamu calaykum waraxmatullah. waan idin salaamo dhammaan walaalaha ku xiran channelka. Waxaan maanta doonayaa inaan idinla wadaago 4 caado ama 4 hab dhaqan ama 4 dabeecadood oo haddii aad naftaada iyo noloshaadaba ku dabaqdid aad noqon doontid qof cagta saara wadadii uu ku guuleysan lahaa naftiisana uu ku horumarin lahaa. Waxaa 4tan caado ama hab dhaqan tajrubeeyeen dad nolosha guulo waaweyn xaqiijiyeen, heer ama meel fiicanna ka gaareen. qodobka ugu horeeya waxa weeyaan kicidda aroor hore. Yacni taasi waxa ay ka dhigan tahay inaad aroor hore toosto ee aad sariirta hore uga soo digato, kadibna aad Ilaahay uga mahad celiso caafimaadka aad ku soo toostay iyo hurdadii raaxada lahayd ee aad saacado badan hurdaysay, iyo weliba jaaniska labaad ee aad heshay kaas oo ah inaad nolol ku waabariisatay. waayo dad ayaanba hurdada dib uga soo kicin oo sidaas nolosha ku faaruqay. kicidda aroor hore ama kala heesugu waa sifooyin ay leeyihiin dadka adduun iyo aakhiraba guuleystay. Haddii aan ku hormarnay midda hore, waxaa aroorta hore ku sugan khayr, duco iyo barakooyin. xataa waxaa ku sugan ducadii nebiga oo ahayd Allaahumma baarik li ummatii fii bukuuriha, oo macnaheedu tahay inuu nebigu ku ducayn jiray inuu dhihi jiray Ilaahayow ummadeyda u barakay kala heesigooda. waqtigaas wixii aad Ilaahay weydiisato waad heshaa, wixii lagu siiyana waa lagu barakeeyaa. dhanka kale, dadka caalamka horumarka sameeyeen ee guulaha waaweyn xaqiijiyeen waxa inta badan ay sheegaan inay 2 dabeecadood oo ay joogteeyeen ay sabab u ahayd inay gaaraan guulaha iyo horumarka ay sameeyeen. waxaana wayaan 2daas akhriska iyo kicidda aroor hore. qodobka labaad waxa weeyaan fikir. mustaqbalka iyo guulaha waxaa leh dadka fikira oo maskaxdooda maala. waxaad soo qaadataa qalin iyo waraaq, kadibna waxaad dul fadhiisataa miiska adigoo si qoto dheer u fikiraya si ay maskaxdaada u gudlato wax cusubna u ikhtiraacdo oo u soo saarto. waxaad ogaataa fikirku waa meesha uu ka bilowdo guusha. wax aan marka hore ku imaanin ficilkoodu ma dhaco. waxaa ka horeysa marka hore inay fikirto maskaxda. dhismooyinka iyo shirkadaha waaweyn ee caalamka maanta sida weyn looga yaqaano, maalinbay waxay ahaayeen fikrad yar oo maskax qofeed ku jirto kadibna la horumariyay. sidaas darteed u ogolow maskaxdaada inay isticmaasho awoodeeda fikir. qodobka saddexaad waxa weeyaan socodka aroorta hore. Soomaali ahaan waxaan dhahnaa luga baxsi. inaad socoto ugu yaraan 30 daqiiqo ama 20 daqiiqo oo aroorta hore ah waxay kaa caawinaysaa inaad focus gareyso oo aad diiradda saarto hawl maalmeedkaada, yacni wixii aad maalinkaada qaban lahayd. waayo maalinkaada ayaad leedahay, biri wax imaan doona ma ogid. sidoo kale inaad 30kaas daqiiqo ama 20kaas daqiiqo oo aroorta hore socoto waxay kaa caawinaysaa inaad si creativity leh oo wax soo saar leh aad u fikirto. caafimaadkana aad ayay ugu wanaagsan tahay oo waxaa laga helaa firfircooni jireed iyo mid maskaxeed intaba. qodobka ugu dambeeya ee afraad waxa weeyaan helidda hurdo kugu filan. inaad hesho hurdo kugu filan, yacni waxaa lagu taliyaa badanaa sida caadada ah qofku ugu yaraan inuu helo 6 saacadood oo hurdo ah ama ugu badnaan 8 saacadood. waxaa sidaas ku taliyaan quburada caafimaadka, laakiin qur-aanka ayaa ugu horeeyayo waxaad ku garanaysaa 3dan aayadood ee ku jirta suuratu naba: wajacalnaa nawmakum subaata wajacalna al-layla libaasa wajacalna an-nahaara macaasha. 3daas aayadood waxa ay ku tusinayaan in nidaamka uu Ilaahay u abuuro koonkan ay tahay inuu qofku maalinkii shaqaysto oo wax qabsado oo irsaaqad xalaal ah raadsado ama wax barto ama wax walba oo naftiisa horumarinayo inuu maalinka ku dadaalo camalkiisa uu wanaajiyo mid adduun iyo mid aakhiro. laakiin habeenkii ay tahay waqti nasiino, waqti hurdo, waqti raaxo. waxa iftiinka maalinka habeenkii markii gudcur ku dhaco ee qoraxdu dhacdo waxaa iftiinkaas loo qariyaa ee waqtiga looga dhigaa mid huduu ah oo degan, inaan ku dareemno raaxo iyo deganaan iyo xasilooni. sidaas darteed waxay guuldarrada iyo fashilkuba ka bilowdaa inuu qofku maalin oo dhan jiifo, habeen oo dhan soo jeedo. kama hadleen haddii uu qofku wax faa'iido leh habeenka ku soo jeedo sida inuu wax akhriyo, imtixaan leh ama wax kale oo markaas naftiisa faa'iido u leh. laakiin sida caadada ah waxaa wanaagsan inaad habeenkiina waqti hore jiifato,
subaxiina aroor hore aad toosto.